golaha deegaanka degmada Burco ayaa maanta qabsaday kalfadhigoodii labaad oo ay kaga hadlayaan qorshayaasha iyo horumarka ay ka qabanayaan magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer. Kalfadhigaas oo warbaahintu dibad joog ka ahayd ayaa markii uu soo dhamaaday waxa warbaahinta la hadlay maayirka degmada Burco Cabdirasaaq Ibraahin Cabdi waxaana uu faahfaahin ka bixiyay isla markaana uu ku dheeraaday qodobada lagaga hadlay kalfadhigaasi isagoo bulshada magaalada Burco ugu baaqay maalinta Khamiista inay isu soo baxaan isla markaana ay ka shaqeeyaan fayadhow iyo sidoo kale nadaafada sidaan u kala dhactiri lahayn maanta ilaahay mahadii wax si fiican ugu qabsoomay galikii dambe ilaa caawaan ku soo gaarnay kalfadhigii labaad furitaankiisa golaha deegaanka qodobada aan ku ansixinay golaha deegaanka amaanu gungaar ka gaarnay oo kamid ahaa saddex qodob ay ahaayeen lambar 1 inaanu dhisnay gudi hoosaadyadii golaha deegaanka uu golahu lahaan lahaa laba inaanu isla eegnay qorshaha degdega ee lagaga jawaabi karo saddexdii qodob ee aanu qaadanay goolka muddada sanadka ka hadhay kala ahaa inaanu maamul dejin sameeyno inaanu dakhliga kordhino iyo inaanu ka jawaabno baahida koobaad oo ah nadaafada fayadhowrka iyo bilicda degmada Burco marka waxaanu saddexda qodob baanu ka soo gaarnay caawa go'aan waxaanu markaa isla garanay si aanu uga jawaabno baahiyaha degdega ee degmada oo koobaad ay tahay maadaama xilli roobaad lagu jiro oo imika arkaysan inuu yara tiixayo xilli roobaadkii imanayo dabayl xagaadi jirto isla markaana magaalada nadaafad darro aad u baahsan ay ka jirto inaanu qorshe degdega ka yeelano oo aanu kaga jawaabno muddadan bishan gudaheeda waxaanu isla garanay maadaama bulshada oo badan ay naga sugayso lafteedu inaan maalin u cayino ololaha Khamiista taas oo socod doonta inta bisha ka hadhay maalin walba Khamiista kalfadhiyada dambana aanu ku ansixin doonaba inay noqoto maalin cayiman oo regional leeyahay oo maalin goboleed oo aanu ololaha nadaafada bulshada oo dhan nagala qayb qaadato sida awgeed Khamiista waxaanu ku dooranay dadku inay fursad hayaan xogayaha dawladda hoose degmada Burco Cismaan Maxamed Sheekh Cismaan Nuur ayaa isaguna ugu baaqay bulshada gobolka Togdheer inay isugu soo baxaan maalintaasi Khamiista ololahaasi nadaafadeed dhigii labaad ee golaha deegaanka ee xarunta dawladda hoose ku soo gabagaboobay caawa dib markii uu bilaabmay bacda casr maanta insha Allah ta'ala golaha deegaanku waxay maanta ansixiyeen kalfadhigoodan labaad dhowr qodob oo muhiim ah oo ay ka mid yihiin gudi hoosaadadii golaha deegaanka oo saddex qaybood ka kooban waxa kale oo la ansixiyay oo la bilaabay insha Allah ta'ala usbuucan olihii nadaafada ee magaalada Burco run ahaantii Burco magaalo madaxdii labaad ee dalka in bilicdeeda iyo nadaafadeeda kor loo qaado la laba jibaaro waa shay daruuri ah marka insha Allah ta'ala golaha deegaanka cusub insha Allah ta'ala waxaan isla jaan qaadi doonaa sida ugu qiimaha badan shaqada heerka ugu sareysa Khaliil Barra Uraan TV-ga qaranka Soomaaliland magaalada Burco.